aad baan idinku mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha kale ee baarlamaanka iyo fulinta iyo saraakiisha ciidamadii odayaasha kaleba waan ku faraxsanahay inaan ilaahay nabad nagu soo celiyey waxaan u malaynayaa dhowr iyo toban beri baan ku jiray safar shaqo oo gobolka Gada ahaa ficlan xaalad adag baan la kulannay oo dagaallo ay dhaceen intaan joognayna dagaal kale wuxuu ka dhacay degmada Ceelwaaq laakiin waxaa ka jiray diyaar garow iyo isku tashi fiican oo ciidamada Jubbaland iyo ay kulli isku tashanayeen si fiican ay cadowgoodana isaga meel saareen ficlan aan isleeyahay dhalinyarada ka soo gurmatay deegaano badan oo isu timid oo howlgalka ku wada jirtay waxay muujiyeen wax lagu farxi karo oo ah in ay wax badan isku filaanshada ka gaari karaan haddana ay ku jiraan abaabul inay sifeeyaan degmooyinka gobolka dhexdiisa ah waxa dhexdooda ku jira waayo guud ahaan gobolka Gada degmooyinkiisu gacanta shabaabka kuma jiraan laakiin waxay ka dhex shaqeeyaan shacabkii iyo deegaanada dhexdooda marka taas ciidan badan baa u diyaarsanaa isku duubnida dadka iyo sida shacabka iyo xukuumadda iyo ciidanka iyo kulli ay wada shaqeynayaan waxay si aad iyo aad u fiican oo aan isleeyahay ololaha la qaadi doono wax badan bay ka qayb qaadan doonaan xoreynta Jubbada Dhexe iyo in la soo dhaqaaqo gobolka dhexdiisa la isu furo door fiican bay ka ciyaari doonaan bulshada kale aan la kulannay oo beelaha ama ha noqoto aqoon-yahanka dhalinyarada ururada hooyooyinka kulligood waxaan isleeyahay dadku ha jirto abaar dheer oo muddo dheer lasoo qaatay laakiin hadda aada moodeysay roobab alla keena oo dayrtii ka soo hormaray inay hadda da-ayeen haddana dadku kulligood dad waxay ahaayeen aada iyo aad shaqada socotaan ay u fiican tahay kuna qanacsan dadku inay system iyo dowladnimo ay hore u dhaqaajiyaan intaan markaan ka soo gudbo waxaa jira maalmaha waddanku xaaladiisa waxaad moodaa in waxoogaa khilaafaad iyo iska daba hadal iyo is-eed-eeda iyo wax badan inay ka jiraan Soomaaliya waxaan isleeyahay nabad iyo wada hadal iyo isafgarad baa wax lagu dhisi karaa khilaafku waxbuu dumiyaa wax ma dhiso khilaafku ma laha horumar waxaana loo baahan yahay in guud ahaan Soomaalidu ay is ixtiraamto oo ama heer federaal ha noqoto ama heer dowlad goboleed ha noqotee isqadarin iyo is ixtiraam iyo wada tashi yaa lagu gaari karaa horumar iyo guul iyo barwaaqo waxaan garanaynaa 30 sano waddankan dhowr iyo 20 sano dhibaatada uu ku jiray waxaan garan karaynaa aduudka iyo waxa hadda la uruurinayo iyo step walba maalin walba waxa la soo qaaday iyo sida ay xaaladdu maanta meesha marayso waxaan garan karaynaa qof kastoo inaga mid ah oo maanta mas-uuliyad Soomaaliya ama heer federal level ha ku sheegto ama heer dowlad goboleed ha ku sheegtee wuu tegayaa shaki kama jiro qof walba waqti yar buu haystaa wuu baxayaa laakiin shayga hadhi doonaa waxay tahay muxuu ka tegey maxaa isbeddelo uu sameeyey muxuu taariikhda kusoo kordhiyey oo xaaladda Soomaaliya maanta meeshay marayso hebel muxuu kaga tegey waa hubaal qof waliba inuu tegayo ama si fiican ha ku tago ama si una raalli ka ahayn ha ku tago laakiin qof walba su-aasha oolaysa waxa weeyaan wuxuu ka tegey maxay tahay dowladda Soomaaliya ama jamhuuriyaddii la odhan jiray jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya burbur dheer kadib siyaasiyiintii talada gacanta ku haysay odayaashii iyo dhaqankii waxay isla garteen waxa la yidhaahdo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya taa macnaheedu waxay qaateen system federaal oo qeexaya
waddankaani inuu isteedyo noqdo qaab federaala wax usoo dhammaystirnamaan kadib dowlad dhexe oo qaabkaa ku socota dariiqaa in la qaato waxaad moodaa aqoon darrida ama fahmi darrida federaalka laftirkiisa iyo intaan ka naqaana laftirkeedu oo dadka soomaaliya jiirashii hadda isa soo daba jiray ayna garanaynin inay keeni karto ama abuuri karto tasaa'ulaad ama su-aalo federaalku waasee federaal noocee ma waddan baa la googoynaya ma waddan baa la qaybinaya ma waddan baa sidaan maya waxaa asalkii wuxuu yahay war bal haddii xaaladii dhexe ay burburtay at least bal aan samayno in dalkii lasoo dhiso oo bal intii isfahmi karta waxaa ku qoran maamulka dastuurka 2 gobol iyo intii ka badan ay isqaadan karta inay state dhisan karaan kabacdi bal salka laga soo bilaabo dhismaha dowladnimada waxaa ku jirto hadda ogtiin annaga inaan samaynaynay waxa la yidhaahdo golayaal deegaan waxaan counsilada loo yaqaano oo la doonayo in salka laga soo dhiso degmo waliba ay soo dhisato golo deegaan oo ay soo doorato oo kadib golaha deegaanku waxa uu la imanayaa ay noqoto inuu keeno dadku inay gartaan maamulka inay iyagu samaysteen waxaan iyagu inay la xisaabtamayaan qofka mas-uulka ana uu garan karayo cidda keentay iyo cidda la xisaabtamaysa ay qofka ay tahay iyo cidda ay tahay sidaasuu ku garan karaa waxay fududaynaysaa markaa matalaada dadku inay gartaan cidday matalayaan taa macnaheeda isteydyaduna waa sidii oo kale marka heer la qaato council ama golo deegaan oo kii dowlad goboleedka la tago kii federaalka la tago waa dallado ishoos yaalla oo qaabkaa u wada shaqaynaya oo wada tashi ka dhexeeyo oo isxog gudbin ka dhexayso oo isqadarin ka dhexayso oo ismaamulid ay ka dhexayso haddii ay jiraan waxyaalaha qaarkood oo dhiman hay-adaha ay khusaysa waxaa laga rabaa in ay dastuurka la saxo la dhammaystiro dib u eegis lagu sameeyo qodobada qaarkood iyo siay isaga hor imanayaan iyo sida uu xalku yahay inay dastuurkii dib u fiiriyaan oo laga yaabo in isaga laftirkiisa uu keeno waxyaalaha qaarkood inayna caddayn oo dastuurka ayna ku caddayn arrimaha qaarkood meeshay marayaan iyo siday yihiin iyo dariiqa la kala leeyahay haddii markaa nin waliba uu qaato isaga rabitaankiisa waxaa imanaysa wax badan oo luma oo hallaaba oo meelo kale ku dhaca inuu soo baxay waxaa kaloo ku dhex jira brobagando iyo social media oo iyaguna qof walba sida uu rabo uu u cabiro dhinac uu rabana uu u jeediyo ujeeddada uu leeyahayna uu isku dayo inuu fushado oo iyaguna waxay ku sameeyaan isdaba wareeg iyo qasbadana ku samaynaya waxaan rabaa inaan idhaahdo dalkaani wuxuu u baahan yahay in loo turo dalkaani wuxuu u baahan yahay in la wada tashado dalkaani wuxuu u baahan yahay is-afgarad wixii soo baxa in lagu dhammeeyo waxaan rabaa hadda ase jubbaland oo maanta guddoomiyii baarlamaanka guddoonkii baarlamaanka guddoomiya ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay hor fadhiyaan inaan sheego inaan diyaaru nahay oon rabno inaan gogol dhigno kismaayo oo ah xarunta kumeel gaadhka ah ee jubbaland gogoshaas oo marka hore ay isugu imanayaan madaxda dowlad goboleedyadu oo aan rabno inaanu ka wada hadallo muxuu yahay doorka aan leenahay muxuu dastuurku noo ogol yahay dowladda federaalkii maxay leedahay maxaan ka tabanaynaa maxaa waddankan xal u ah taladaan u gudbinaynaa maxay tahay tabashadaan qabnaa maxay tahay inaan anagu si furan u wada hadalno oo aan ka hadalno mathalan siyaasadda dibadda oo kale sharciyan yaa u leh dowladda federaalka maxaan anagu tala ku leenahay oo naga soo gaadhay waxaa iyo waxaa iyo waxaas stateku muxuu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay sidaa iyo sidaa iyo sidaas annagoo tixgelinayna xaq dhowrayna ixtiraamayna inaan annaguna xisaabtanno isweydiino waxaan naga khaldan isweydiino waxaan ku saxsannahay isweydiino xukuumadda federaalka waxaan ka tabanayno ama iyada aan ku khaldayna ay naga tabanayso inaan si dhaba uga wada hadallo oo soomaalinimo oo kadib aanaan media iyo dibad iyo gudo midna isaga jawaabine intii la ishor fadhiisto wixii annagu aan u aragnay in ama sax nagu tahay ama khalad nagu tahay madaxda sare ee dowladda federaalka
annagoo bikulli xurma u hayna inaan iyagoo sor fadhiisano oon isla saxno oo aan sheegno xaggey wax ka khaldan yihin waxaan waan ku ogolahay anna maxaad ii ogoshahay waxaan xuquuqdanu dastuurku isiinayaa mathalan hadda qodobka 54 iyo 53 haddaad fiirisee dastuurka isaga laftirkiisa iska hor imanaya iska hor imaadkaasi markaa muxuu keenaya waa wax sixitaan u baahan haddaan anna war ruux meeshan istaago kana uu waxaan istaago nin walba qumanihiisa qofka ugu jiro waxaa lumaya dantii dalka iyo dadkaa lumaysa waxaan garanaynaa maanta isteedyadan iyo say kusoo dhismeen waxaan garanaynaa Jubbaland 2 sano dawladdii jirtay xilligaas dagaal dhib badan oo isjiitan iyo ishardan labaanu kusoo jiray 2 sano dambe waxaanu gaarnay inaan horey loo socdo xal la gaaro waxaan u baahanahay xukuumadda maanta jirtay inay horey ka sii qaado meeshii dawladdii ka horeysay ay soo gaadhay oo ay horey u qaado tallaabooyinka iyo waxa la gudboon isteedyadana waxaa laga rabaa inay qadariyaan oo xushmeeyaan oo xukuumadda federaalka waa xukuumaddii matalaadda Soomaaliya iyadaa iska leh waxyaalo badan oo ka mid ah inay ku ixtiraamto ku qadariyaan ay la socdaan sida ay tahay oo sidaas tallaabada la qaadayo lagu qaado taasaa waxaa lagu xallin karaa hadduu jiro khilaaf khaliijka ka jira hadduu jiro dastuurka wax ka jira hadduu jiro wax la isku hayo hadday jirto masaalix kulligeed waxaa lagu xallin karaa wada hadalkaas arrinta khaliijka waxaan u malaynayaa maanan ka hadlin khaliijka waa dad walaalaheena maanta qatar iyo imaaraadka iyo sacuudiga kulli duwal khaliij duwal tacaawun khaliij ba ahayn 6 waddan ba ahayn waa walaalaheen kulligee walaalay nooyin xukuumadda federaalka hadday aragti qaadatay waxay mudan tahay inay la tashato isteedyada oo ay ku qanciso oo ay tiraahdo waxaan sidan aanu aragnay sidan iyo sidan aad dalka maslaxadiisu ku jirtaa dhexdhexaadnimadu waa sidan hadday dhinaca kale ku doodayaan isteedyadu dhexdhexaadnimo ma aha dhinac way martay dantu annaga xaggani nagaga jirtaa waxay u baahan tahay isqancin wada hadal wada fadhiisi weliba xukuumadda federaalka waa iyada cidda laga sugayo inay qanciso sababtoo waalidku ilmihiisa siduu ula dhaqmay iyaguna ula dhaqmaan iyagaa mas-uuliyaddu saaran tahay waxa hallaaba iyagay ka hallaabayaan sababtoo ani state baan joogaa maanta aniga madaxweyne farmaajo isku eedna ma nihin isku xugunna ma nihin waxa aniga iga dhacayo waxa isaga ka dhaca way kala weyn sidaa daraaddeed waxaa la rabaa inay iyagu keenaan oo intay u yeedhaan stateyada ay talada badiyaan waxaan rabaa inaan xukuumadda federaalka hor sheego maanta talada ay ku yimaadeeni wada tashi bay ahayd khayr alaas iyo dawladdii xasan sheekh haddii hadda ay qurba joogta iyo social media lagaga hadlo NLF-kii ama madashu waxay ahayd madaxweyneyaal shirayo waddankiiba awoodiisa lala wareegayo stateyada la wareegay maynan ahayn waxay ahayd talo war waddankaani muuna gaadhin xilli maanta la isu yeedhiyo oo qof wali uu yidhaahdo sidanaan idhi kanay noqon sidanay noqonaysa waxaan ku jiraa weli isqancin isyabyabid meel ka bixis fudho badan baa noo cadow badanna oo lagu xeeraya taasaa waxay keenaysaa markaa inaan sababno oo aan keenno wada tashiganaga ismaqalkayaga wax isweydiintanada isu tanaasulkayaga inuu wax badan karo laa shaka xukuumadda waan ku xaq dhowraynaa waan ku tixgelinaynaa waxay xaq u leedahay laakiin waxaan u baahannahay in laysqanciyo loo yeedho isteedyada annagu aan tashanno waxa aan ku khaldanahay aan anagu isweydiino xukuumadda aan ula hadallo waxa aan tabanayna lagala hadlo wejigaa la yeelo taas waa midaan doonaya inaan gogosha aan ugu dhigo oo aan wax dhaba ka wada hadalno oo xanta iyo wareega iyo banaanka la joojiyo laakiin waxaan u baahannahay xukuumadda intaan wada fadhiisano inaan isqancinno waxa dhabtaa ka wada hadallo danta dalka iyo dadku maxay ku jirtaa mowqifkan aad qaadateen muxuu xalkiisu yahay bal aan xisaabtano sidee buu dalka dan ugu yahay intaasoo dhan intii la isweydiiyo wax Soomaali ay leedahay oo xukuumaddu ay ku matalayso oo sharciyada iyada haysato inaan markaas la maadin taa markaa waxaan mar labaad iyo maslaxad ku celinayaa baaqayga ah inaan dawladda federaalka annaga isteedyadii marka hore gogol aan halkaan u dhigayno ka bacdina aan doonayna inaan xukuumadda ugu tagno goobteeda hadday u baahato sababta waxay mudan tahay xukuumadda inaan iyada u tagno noo yeedho ma odhan karay hadda xukuumaddaan u yeedhayna sababta awoodayda ma aha hadday iyagu ku qancaan inay noo yimaadaan ahlan wasahlan anu kuma marti qaadi karo waa dhulkooda iyagaa xukuma laakiin waxaan leeyahay soo dhowaada wadahadalkanaga kadib inaan idinkana idiin nimaadno wix furan oo soomaalinimo ana sidaa looga wada hadlo weliba aan jeclahay inay isteedyaduna iscanaansadaan xukuumadduna iscanaansato
waxa laga hadlayana ay noqoto wax Soomaali dano waxa umusha u dana baa ilmahana dano taas markaa waxaan rajaynayaa in marka tan ay dhamaato waliba waqtiga ugu dhaqsaha badan inkastoo deegaan walba buuq ku filan iyo culayska badan uu jiro haddana waxaa asala arrimaha masiiriga ah ee mustaqbalka waddanka saameynaya intaan kuwa hoose dhigno inaan isugu nimaadno oo xanta iyo iska daba hadalka banaanka la joojiyo intaa waxaan ku darayaa arrintaani waxay sababtay inay khilaafaad dhacaan galmudug oo kale waan maqlaynay miidiyaha xogaa madaxweynaha meel ka hadlay tegey safar faragelin kale oo laleeyahay xukuumaddaa samaysay xildhibaanadii oo wax wada Soomaali waxaan rabaa inaan ugu baaqo in wax la dumiyo way sahlan tahay laakiin in la dhiso way adag galmudug dhismaheeda iyo buuqiyaa lagu galay iyo intuu jiitamayo waan garanaynaa maanta waxaan rabaa inaan ugu baaqo xildhibaanada galmudug iyo mas-uuliyadda federaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka galmudug oo madaxweynuhu ugu horeeyo inay ka shaqeeyaan midnimada iyo xasilooniya iyo deganaanshaha iyo isku haynta galmudug oo ay ka fakeraan walaalaheen ahlu sunna iyo dhuusamareeb seen u keennaa seen galmudug barnaamijkeeda u dhamaystiraa seen u dhisnaa seen caasimadii ay lahayd ugu wareegnaa inay noqoto fakarku midkaas shalay cabdikariim baa tegey maanta xaaf baa jooga berri wuu tegayaa laakiin waxaad ogaataan nin waliba hadduu si yara ku tago de waxaweye kaka dambeeyaana wala lama ladadii xoorkii idhoo kale unbay noqona isaguna wuu walaaqayaa sida shaydaankii walqawfiyi buu kula jiraya macnaheedu waxa weeye marka waa la khaldamay anu waan khaldamayaa maanta jubbaland baan jooga laa shaka waan khaldamayaa bashar baanu ahay khalad badan baa iga dhacaya laakiin maxay tahay in laygu soco si dhimrin iyo wanaag iyo naseexo iyo qaboojin labaa laygu sixi karahay marka ay hirigiri iyo ficilta noqoto oad garanaysaa nin waliba meesha uu ka dhacayo wuxuu keenayo waxaan rabaa marka isteydyada dhexdooda xukuumadda federaalka waxaan rabaa inaan ku booriyo yayna idinku noqonin taariikh xumo wixii shalaya allahu lagu soo dhisay in la yidhaha dawladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan khayre xilligay joogeen baa waxaasi dib u burburtay yayna noqonin inaad ka shaqaysaan haddaad xataa siyaasiyan isoo hortimaadaan aan isqabano qol intaan isku xidhano inta mas-uuliyiinta feer aan iskala daalo dadkan aan weji fiican u sheegno aan inagu isqancino laakiin yayna noqonin inaan qolana inay ka qayb qaadato dadka dhexdiisa ama isteydyada wixii dhibaato ku keenay macnaheedu ma aha axmed wuxuu ka dareen qabaa waxaa ninkii maxamed khayrkaa loo xiray soo qoyso oo haddii galmudugna barnaamijkaa lagu samaynayo isagana waa loo maya wallahi bayna taas ugu jirin dareen aan ka qabaana ma jiro aragti aan ka qabiyo waxa taa ku saabsanna ma jiro ee waxaan uga jeedaa waxay tahay wadahadal iyo isqancin iyo deganaansha wax lagu xallin karaa ee car iyo sidanaan yeeli iyo guryo laysu galiyo qoryo laysku qabto midna looma qaban karo xukuumadda federaalka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku boorinayaa inay ka shaqayso qaadato bosishanka ama maqaamka waalidnimo ay taagan tahay isteydyada iyadaa waalido waddankan iyagaa ku magacaaban waxa xumaadiya waxa hallaabiya waxa hagaaga intaba iyagay taarikhda u gelaysaa inay ka shaqeeyaan dariiqay qaataan oo midkaas noqdo waan ku boorinayaa isteydyadana waxaan leeyahay madaxda isteydyadowna isku daya xuquuqda ay jamhuuriyadda federaalka madaxdeedu leedahayna inaad ogolaataan ka idinku aad leedihiin inaad si fiican ugu dhaqantaan waxaad tabanaysaanna inaydaan saxaafad iyo meel kale isu marin aad idinku laga wada fadhiisto oo aad kala hadashaan oo dadku sida laysu fahmi kale ugu fiican in looga wada hadlo xukuumadduna inay tixgelintaas ay samayso gobashaana waxaan rabaa inaan sidaa u dhigo waxaan rabnaa inaan uma baahnin in soomaaliya bannaan ama looga taliyo ma doonayno inaan siraacyo kale oo dibadda ka jira oo dagaalo ah inaan anagu dhex gallo oon u noqono xudun ma doonayno annagaa koritaan ku jiro oo yar dawladaha kalena waxaan rabaa inaan ka codsano soomaaliya ha loo turo soomaaliya waxay taagan tahay maxay ahayd tallaabo barad haddii markaa ay noqoto in qof waliba isku tijaabiyo waxay ku tahay dhibaato laa qatar walaa khaliij kale walaa kuwait walaa dawlado kaloo waaweyn walaa kuwa darisa waxaan rabnaa cid waliba soomaaliya inay u turto garato marxaladday shalay ku jirtay iyo maanta meesha ay taagan tahay ha loo turo
hadday sii burburto maanta nina waxba uma aha burcad badeed shabaab daacish shaydaan jinni cid waliba way ka faaidaysanaysa taasi markaa qofna danu maaha marka taana waxaan leeyahay dawladuhu ha garteen soomaaliya maanta marxaladda ay ku jirto iyo waxa ay tahay oo siraaca meelaha qaar ka jiraay yoona saameyn lagu yeelan xukuumadduna ha ka foojignaato wax kasta oo khilaaf keenaya xukuumaddu go-aamo badan oy gaarayso tashi ha ka samayso taladu inaad la tashato qof maanta isku filana ma jiro nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo ilaahay fowqa sabca samawaad uu waxyi uga soo dejinayay baa haddana in ilaahay wuxuu ku lahaa nebi maxamed la tasha dadka mu'miniinta markuu ilahay ka hadlaya wuxuu ugu sifeeyey wa amruhum shuuraa baynahum waa kuwa dadka la tashada qof tala ka maarmi karaa ma jiro maanta haddaan idhaha waan isku filahay been baan sheegay caqliga qofku waa wax yar waxaa la idhahaa waa irbad caaradeeda walba maanda walba saas oo kale dadkana waxaa ugu fiican qofka wax la tashada laba qofka dadka uu la tashanayahay yuuna noqonin mid shar kuu taliya kan aan dillo kan aan gub ka siino kan madaxa ku dhunka waa inuu noqdo qof khaladkaaga kuu sheegi kara anigu maanta waxaa iigu fiican qof ila taliya qofka idha axmedow waxa waad ku khaldantahay gacanta iga qabta sidana sax maheed halkaa kaama jirto laakiin ka kuu nacamleeyo ku idhaahda waxaan kugu soo arkay jannada sheekh xuseen furraa tahay wax xaq baad kusoo hadlaysaa sidanaa tahay kaasi god buu kugu ridaya waxbana kuuma sheegay ha noqoto madaxda markaa kuwa talada ka qaata kuwa aan nacamlayaasha ahayn kuwa talada ka qaata kuwa godka kusii ridaya kuwa talada ka qaata dadka ahlo xalliga ee maskaxdooda furanteen masaalix shaksiga ahayn inay talada ka qaataan ee ka naxaya qadiyaddan aada iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan ugu baaqayaa gobashaas anoo madaxda mid ula xidhiiri doona inaan dedejino haddaan reer jubbaland nahayna waxaan rabnaa inaan gobashaasna qaadno soomaali isu keenno isku wadno khaladaadka aan leenahay maanta waxaan diyaar u ahay khaladka aan leenahay inaan qaato waxaan diyaar u ahay waxa ila qumanaya khalad u arko qofka walaalkay inaan u sheego oona ka qarinin sababto waa masiir umadeed waxa laysku haystee lagu jiidjiitamayo aad baad u mahadsantahay billahi tawfiiq wasalamu alaykum